marka mawduuceena halka maanta waxaa ka mid ah in xulul waarta loo helo taana waxaan isku oranaynaa run ahaantiina dawladdu haddii aanay halkaa ka bilaabin adduunkaan ula tartamayna dad baanu iska dhicinayna waxbaanu soo saarayna waxbaanu dhoofinayna horta waxaa ka horeysa 4 milyan ee Soomaaliyeed la leeyahay protracted situation xaalad dheeraatay oo hubanti la'aan ah oo nolol xumo ah ayay ku dabar iyo furuuq xiriirihii waa in xal loo helo taas hay'adda gurmadka kaliya ma sameynayse waxay u baahan tahay waxa la yiraahdo integrated government approach hay'adaha kala duwan oo dawladda oo si dheelitiran arrinta weego arrin dhaqaale waa arrin dhaqan waa arrin biyada iyo nabadgurka la xiriirda waxa laga wada waa lunsi xoolihii loogu talagalay masaakiinta oo la lunsanay arrintaas waa arrin mandaqada Afrikooda lagu soo eedeeyo waa arrin qaramada qaar xoog weyn oo dawladahooda xoog weyn yihiin ay gacan togaaleeyaan dawladda federaalka waxa ku waajiba inay arrimaha wax ka qabato waajibka waxa la wadaagaya maamul goboleedyada iyo iyaga dadkii meesha ku noolaayeen maamula annaga haddaanu nahay xukuumadda waxaanu ballan qaadanay inaanu ahmiyad siinayno dadaal fara badan ayay hay'adda soo magalisaa xaqiijinta arrinta meeshooda ku haynaa naga rabaa dabcan dadka oo hadda soo baxana san ugu celilahayn guryahoodii iyo beerahoodii inaan ka shaqeyno waa haddii dadku ay laga dhigo dad gurigooda namba dad u dulaysan waxay noqonaysaa runtii wax oo aanan qaadan karin ummaddaani ummad waxay ahayd beera tabcato waad ogtihiin hadda baydhabo Soomaaliya halka milyan laga sheegay dadka baydhabo laga sheegay halka milyan waa dadkii beeraha dadka u dhaqoodo jiro masagidii awda masarre iyo ka bixi jirtay tuugar hoosle iyo dhulkaas ka waxay jirtay dadkii hadda baydhabo banaankiisa daadsan yihiin arrintaas runtii waxaan qiyaasaynaa in la abuurayo oo si uluka ah loo abuurayo waana arrin runtii ay tahay kulligeen inaan ka hortagno in dadkaynu laga dhigo independent laga dhigo maanta haddii wax yar ay adduunyada ka dhacaan adduunyadana aragteen oo dhibaato ay ka taagantaha maalin kasta aan nala soo gurmudo wadanana lacabo horta dad 30 sano loo gurminaya wala nacay dabcan arrimo oo aan annagu aanan abuuri karnaa jiro oo cimilada ay abuurto hadda oo marna fatahaada dhacayso waalan oo ummadii baabi'inayso marna waxaa dhacayso abaar waalan taasi runtii waa cimilada keento runtii hadda cilmi baaris nala wadnaa oo waxaan rabnaa inaan bal wax ka ogaano xalka looga hortegi karo maxaa yeelay sanadkii horena abaaray ahaaday dayrtii fatahaaday ahaaday abaaraa hadda ku xigto gugana fatahaad waay marka arrintaas runtii inaan qorshe badan ka yeelano qorshooyin badanaa jiraan oo webigan maalin kasta ay fatahayo sidii loo bixin lahaa iyo webiga dibkiisa loo sameyn lahaa webiga hadda waxaa sakado iska noqda sakad marka bal webiga in la qodo oo webiga la qodo wara in la sameeyo biyaha lagu kaydiyo qorshayaal badan ayaa leenahay marka shaqada waxaa bilaabay 1992 dadka qaaradda meesha joogba ay sadhalan laakiin 92 wax ay ka shaqeeyeen iyo wax maanta meesha isku mid waay صاحبنا السائل waxay ka hadlayeen kanaalada iyo barnaamijyadas ka hadlayeen waa wixii aan 1992 ka shaqeynayay marka waxaa muhiim ah inaan ka fikirno maxaa shaqadeena ka bedeli karnaa shaqada aan qabanayno maxaa ka bedeli karnaa 30 sano wixii baa laga shaqeynayay welina meeshaan taaganahay iyo meel u dhow marka taas inaan fikir fiican ka yeelano arrintan ay diversionka run ahaanti waa arrin aada complicated oo meelo badan taabanaysa dadka isdaba marinayo waxaa loogu talagalay dadka masaakiinta ah waxaa u malaysaa inay dhowr tilaabo naga horeeyaan markaan brosees sameyno sidii broseeska u difiid garayn lahaayeen ama u guulaysan lahaayeen dhowr tilaabo naga horeeyaan marka anagana waxaan laga rabaa inaan la imaano brosees wacyiga la jaan qaadi kara oo dadka raba inay hantidaas ka faa'iidaystaan sida qaabada uga faa'iidaystaan aan uga hortegi karno